السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن وناكسن قياري waxaad ku soo dhawaataan qodobada wararka kuwa ugu door karoona waxa qayb ka noqonaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo sheegay in saddex qodob markaasi Israa'iil ay Soomaaliland aqoonsi u bedelatay haddaba maxay tahay saddexdan qodob oo markaasi ka dhawaajiyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaan kula wadaagi doonaa daawadayaal dhinaca kalena qodobada kalena waxa qayb ka noqonaya wasiir iyo senator hore Cusmaan Dube oo ku wajahan magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Soomaaliland isagoo markaasi soo dhaweyntiisa laga dareemayo gudaha magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Soomaaliland qodobada kalena waxa qayb ka noqonaya banaanbax xoogan oo lagu soo horjeedo Israa'iil iyo sidoo kale Soomaaliland oo ka socdo gudaha magaalada Muqdisho dhinaca kalena qodobada kalena waxa qayb ka noqonaya culimada Soomaaliyeed oo markaan mowqif adag ka qaatay go'aankii ka soo yeeray Israa'iil iyagoo markaan fariin adag u direen Soomaaliland iyo sidoo kale Israa'iil haddaba maxay yihiin culimada Soomaaliyeed fariinta ay u direen muuqaalkan ayaan kula wadaagi doonaa saaxiibayaal ee marka hore soo dhawaada haddii ay tahay markuu kugu horeysaan soo boqoto fadlan YouTube-keena ku soo biro subscribe sar muuqaalkana like sar wixii fikirkaaga ahna qaybta hoose ee faalada noogu reeb waad ku mahadsan tahay daawashada iyo sidoo kale la jaanqaadka wararkeena mahadsanid daawade aynu ku bilowno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay markaan in saddex qodob oo muhiim ah Soomaaliland ay aqoonsi u bedelatay Yuhuudda haddaba maxay yihiin saddexdan qodob oo la yaab kale oo markaasi ka dhawaajiyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud qodobka ugu horeeya hadii aynu ku bilowno qodobka koowaad oo madaxweynuhu ka dhawaajiyay waxa uu noqonayaa in markaasi Yuhuuddu ama Israa'iil ay rabto in dadka reer Falastiin ay markaasi u soo rarto gudaha magaalada Hargeysa oo halkaasi ay ku noqdaan qaxooti qodobka labaadna waxa uu noqonayaa in markaasi Israa'iil ay saldhigyo waaweyn oo military ay ka samaysato magaalooyinka Hargeysa iyo sidoo kale Berbera qodobka saddexaadna waxa uu noqonayaa in markaasi Somaliland ay qayb ka noqoto dawladaha markaasi ku jira heshiiskan loo yaqaano Abraham madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaana sheegay in markaan Israa'iil ay ku xadgudubtay madax banaanida iyo sidoo kale midnimada dhuleed ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyadoo shalay ay ahayd markii wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil uu markaasi soo gaaray gudaha magaalada Hargeysa halkaasi oo markaasi laga tusayay dhulka militariga oo markaasi Israa'iil ay ka samaysan doonto gudaha magaalada Berbera taasna ayaa walaac xoogan oo markaan ay ka qabaan dawladda federaalka Soomaaliya kadib markii wasiirkii arrimaha dibadda uu soo cagarigtay ayaa leeyahay gudaha magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Soomaaliland markii uu wasiirku laabtay oo ku laabtay magaalada Tel Aviv ee caasimadda dalkaas Israa'iil ra'iisul wasaaraha dalkaasi Israa'iil Benjamin Netanyahu waxa ugu warramay ayaa leeyahay sida loogu soo dhaweeyay gudaha magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Soomaaliya sidoo kale Israa'iil markaasi in ay markaasi soo bartilmaameysatay sidoo kalena ay saansatay ayaa leeyahay dhulka markaasi ay ka samaysan doonto ayaa leeyahay saldhigyada military oo markaasi la filayo in dhawaan ama maalmaha soo aadan Israa'iil ay ka samaysato magaalooyinka Berbera iyo sidoo kale Somaliland madaxweynaha iyo sidoo kale jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaana cambaareeyay falkii uu shalay ku kacay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaas Israa'iil kaasi oo safar booqasho ku yimid gudaha magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Somaliland dhinaca kalena wasiir hore iyo senator Cusmaan Dube oo ku wajahan magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Somaliland isagoo soo dhaweyntiisa laga dareemayo gudaha magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Somaliland wasiirkan sida ogtiinba maalmihii ugu dambeeyay ayuu iska casilay xilkii uu markaasi ka hayay aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa uu sheegay in markaasi Somaliland aysan qayb ka ahayn Soomaaliya waxaana lagu soo warramay in saacadii ugu dambeeyay markaasi ku wajahan yahay gudaha magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Somaliland soo dhaweyntiisuna waxa laga dareemayaa isla magaalada Hargeysa oo haatan dadyoogii markaasi ku dhaqnaa guud ahaan magaalooyinka Hargeysa iyo sidoo kale Berbera ayaa isugu soo baxay markaasi wadooyinkana waxa lagu arkayaa in boorarka ama sawiraan lagu xardhay kaasi oo ay ku suran yihiin senator hore iyo sidoo kale wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta senator Cusmaan Dube oo haatan la filayo inuu gaaro gudaha magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Somaliland badana xildhibaanada ka soo jeeda waqooyi markii ay koonfur yimaadaan waa ay ka macaashaan markii ay dakhliyo iyo sidoo kale akoonkooda ay lacag badan fara badan ay markaasi ku hubsadaan ayay gooyaan oo waxay ku laabtaan wada ama gobolkii ay hore ugu yimaadeen halkaas ayay iska dhiibaan waxayna leeyihiin waan qaldanay waxaan u soo laabnay wadankeena waa iyagu sida ay aaminsan yihiin koonfurtu waxay noqotay meesha kaliya ee dakhliga laga sameeyo dakhli markii laga sameeyna kadibna laga laabto oo loo laabto meeshii hore looga yimaaday senator Cusmaan Dube oo ka soo jeedo gobolada waqooyi guud ahaan waxa uu taageeray go'aankii Israa'iil ay ku aqoonsatay Somaliland kaasi oo ah in Somaliland aysan qayb ka ahayn Soomaaliya Somaliland waxa uu leeyahay haatan wixii ka bilaabo waxa ay tahay dalka madax banaan jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya dhinaca kalena culimada Soomaaliyeed markaan mowqifkooda banaanka ayay keeneen sidoo kalena markaan fariin adag ay u direen Somaliland iyo sidoo kale Israa'iil haddaba waxaan kula wadaagi doonaa fariinta maanta culimada Soomaaliyeed direen
waa kuwan culimmadii ku dhaqneed magaalada Muqdisho oo guud ahaanba isku raacsan in aanan marnaba laga gorgortamin karin madax banaanida iyo sidoo kale Somaliland hadda dhulkaas la dhihi jiray hadda waxaa la dhihi karaa Somaliland laba maamulo hadda ka jira oo dugtiin maamulka Hargeysa fadhigiisu yahay iyo maamulka Laascaanood fadhigiisu yahay marka waxa hadda magaca saxda ah oo la dhihi kara waxa waaye walaalaha Soomaali galbeed ama waqooyi Soomaalida qiimaha badan oo runtii dadka Soomaaliyeed taariikh fiican dalka Soomaaliyeed kule dawladnimada Soomaaliya kule 1960kii midnimadii Soomaaliya inay waqooyi koonfur midowdo lafdhabar u ahaa dalka 30 sano dawlad ka jirtay xilligaas 60kii ilaa 90kii dawladdaas tiirarkeeda kamid ahaa madaxweyne ku-xigeenada ku jiray golaha wasiirada ku jira dhammaan maraafiqda dawladda diblomaasiyadda ku jiray markii burburku dhacana deegaankooda oo deegaanada ugu nabad badan oo ay nabadeeyeen oo loo qixi jiray oo Soomaalidu maaragtay ay yani u baxsatay waxa waaye wax kasta oo ixtiraama oo qiimeeyna ay ka mudan yihiin ummadda Soomaaliyeed wax cadaawad ah oo loo haayo haba yaraatana ma jirto dawladnimada Soomaaliyana waxbay ka leeyihiin waxbay ka soo dhisteen dawladdii 1960kii la aqoonsaday aqoonsigeedii bay wax ka leeyihiin aqoonsi cusub ay maanta yuhuud uga baahan yihiin ma jirto tii dawladdii Soomaaliya ayay wax ka leeyihiin waxbay ka hoggaansan karaan hadda way ku jiraan madaxweyne Cirro wuxuu awoodi kariyaa inuu inta xamar yimaado u tartamo kursiga dalka ugu sareeyo madaxweyne ka noqdo wasaaraha fulinaya uu noqdo wax u diidaya ma jiraan marka horta waxaan rabnaa in la ogaado mudaaharaadkan cinwaankiisu ma ahan cadaawad loo haayo walaalaha waqooyi galbeed ku nool maaragtay reer waqooyiga ah ee waxa weeyaan badbaado iyo naxariis loo danqanayo ama shafaqo loo qabo khataraha lala damacsan yahay dibindaabooyinka loo dhigaayo ayay culimmada Soomaaliyeed ka xun yihiin marka midowga golayaasha culimmada Soomaaliyeed mudaaharaadkan oo hogaaminaya culimmadii Soomaaliyeed oo dhan oo jikooyinka iyo maraakista joogana ay garbihooda taagan yihiin waxaan maanta si rasmi halkan uga iclaanaynaa walaalayaal khataraha yuhuuddu ay xambaarsan tahay iyo ujeedooyinka ay ka leedahay inay idin yimaadiin oo ictiraaf idinku soo tuuraan beenahoon jirin waa 5 arrimood arrinta koobaad waxa waaye caqiidada faasidka ah oo Abraham Accord ay ku magacaabeen oo diinta islaamka ay rabaan inay kula dagaalamaan ayagoo awoodda reer galbeedka isku halaynaya oo islaamkii ilaahay uu yiri in diin cinda Allah islaam intay bedeleen oo dhammaan wixii yuhuud iyo nasaar ku saabsanay laga tuuray islaam muslim iyo yuhuudi iyo kristan isku cajiiran oo hal xab isku ah oo kulligoodna janno wada galaya ama naar wada galaya isku caqiido ah in la abuuro ilaahayna taas agtiisa ma taalo ilaahay agtiisa waxa taalo diinta islaamka ayaa yuhuud iyo nasaarana sida shicaarka oo maanta mudaaharaadkan oo ahay la marhaban bihim innahum salun nar hadaysan soo islaamin oo aysan soo gelin diinta islaamka ayaga iyo nasaaraba waxa weeye waa dhuxul naareed waay diinteenu saasay qabtaa qaar badan waa soo islaameen qaarna u rajeeyeen inay soo islaamaan marka macaalimtaas macluum min diin bidaruura oo khilaaf asan ka taagnayn muslimiinta agteeda ayay rabaan inay bedelaan dadka ku qasbaan taas marka waa khatarta koobaad oo xagga caqiidada iyo diinta ku saabsan waay waxaan halkaan rabnaa laba sheekh oo qiimo badan oo arrintaas diideen oo caddeeyeen iyagoo weliba maamulka Soomaaliland aan ka hor imaanin aan wax ka sheegin Sheekh Maxamed Cabdiraxmaan Kaariye iyo Sheekh Maxamed Weli Sheekh Cabdirashiid oo dawladda ay xirtay Soomaaliland maamul ka jira waxaan culimada Soomaaliyeed halkan ka soo jeedinaynaa baaq caajil ah in labadaas sheekh xorriyadooda la siiyo labadaas sheekh waxay u xiran yihiin ma ahan inay ka hor yimaadaan maamulka Soomaaliland waxay yani caddeeyeen khatarta yuhuudda caqiidadooda ay xambaarsan tahay waana arrin caqiido ah waan muslimiintu isku raacsan tahay arrintaas marka waxaan leenahay maamulka iyo culimada iyo acyaanta Soomaaliland daqiiqadihii la xiray ilaa maanta waxa loo shaqeeyay oo loo hiiliyay waa yuhuud iyo kufrigeeda ma ahan Soomaaliland looma hiilin islaamna looma hiilin culimadaas xorriyadooda la siiyo qodobkaasna oo in caddeeyaan rabay markaana waxaan todeeda xataa gaaladii ayaa ka mudaharaadaysa oo nacaysa oo waxay sameynayaan ku diidan markay adduunka boos ka waayeen oo waxay sameynayaan adduunkii ka soo jeestay ayay ka soo dooneen meelahan inay isku dhaqaan bay rabaan inay maaragtay maxaanku dalkeenna isku dhaqaan oo ceebtooda ku qariyaan bay rabaan oo dawlad caadi iska dhigaan waxaan leenahay waa ku fahamsannahay walaalaheenna ku khaldamana waxaan leenahay annagaa fahamsiinayna ilaahay baa na fahamsiiyey
haa antum ulaa'i tuxibbuunahum walaa yuxibbuunakum waa idinkaas jecel oo ku dagmahaya laakiin ayagu idinma jecla calankiinna ma dhunkanayaan tawxiidkiinna ma qaadahayaan diintiinna ma ay jecla nebigiinna ma aaminsana ayaga go'aankoodu meel buu u yaallaa marka idinkuna waxaa la leeyahay doqon ha noqonnina go'aankiinna qaata waxaan sheegaynaa ka caddeeyaynaa meeshaan ummadda soomaali oo muslimka ah wixii dhexdeeda weeye ayagaa ka heshiinaya ayagaa ka doodahaya laakiin in meel fog la aado oo cadow yahuudda la soo dhowaysto ayadoo loo malaynayo inay mushkilo kaga xallinayo baahida ay u qabaan yahuuddu maantay inay dowlado helaan inay dad helaan ayaa ka badan mid annagu u qabno waxaa loo baahan yahay in la fahmo waxa maanta la sameeyey mucaamalo maaha dad baa oranaya nebigu sala allahu calayh wasalam markuu madiino joogay nin yahuudi ah buu la mucaamalay nebigu sala allahu calayh wasalam yahuudiya ayaa jira oo u adeegi jiray laakiin dowlad dhisan oo waxlaynaysa oo wax baabi'inaysa xataa gaaladii kale ay diideen la yeelatid arrinkaa yahuudi ictiraaftid waxa ay ictiraaftay inay dowlad yihiin waxa ay ictiraaftay dhulka ay haystaan inay leeyihiin baa ictiraaftay waxa ay ictiraaftay dadka ay laynayaan inay ku saxan yihiin baa ictiraaftay marka waxaana mucaamalo maaha xataa cilaaqa diblomaasiya maaha mabda'a yahuudda oo aad taageeraysid ayuu ku dhammaanayaa marka waa ka digaynaa haddii lagu simbirraxday oo marka hore maxaanku dhaha dadka la siray yaan lagu sirmin ilaahay subxaana wa tacaalaa amarkiisa aan qaadanno yahuudda aan iska ilaalinno annagoo dhexdeenna kuwii midooba oo isjeclaada allaha naga dhigo haadaa wabillaahi tawfiiq yuhuud dooni mayno marka sidaa darteed walaalayaal culimmadii way sheegeen warka annaga waxaa weeyaan hadda dareenka aan qaadnay oon ognahay waxaan awalba muxuu ahaa waxaan idiin sheegayaa horta oo aan isleeyahay yahuudda waxay dhulkeenna u timid muxuu aha ummadda reer falastiin yuhuudda labadii sane ay dhammaynaysay shacabka ugu shucuurta badnaa oo ugu taageerada badnaa ummadda soomaaliyeed bay ahaayeen kuwaasoo ay culimmada soomaaliyeed hoggaaminayeen ayay ahaayeen dadkii ugu dareenka badnaa oo ugu taageerada badnaa oo diidaaya yuhuudda waxay ka samaynaysa reer falastiin ay ku samaynaysa sidaa darteed ayay yahuudda muxuu ahaa dhulkeenna waxay u soo aaday dareenkaa iyada ah dareenkaa isaga oo ummadda soomaaliyeed ay muujinayso dareenkaa inay damisay baabi'isay waddankeenna u timid ma yeelayna dareenkaa in la baabi'iyo ma yeelayna dareenkaa inuu baaboo ilaa ay falastiin xorowdo ma yeelayna dareenkaa inuu baaboo marka waxaan leenahay yahuud waad kadsoontay ummadda soomaaliyeed saad u malaynaysa maaha ummad dhulkeeda la qaadan kara maaha ummad la kala goyn kara maaha dadka soomaaliyeed waa soo jeedaan marka waxaan le yahuuday waad kadsoontay iskaga laaba wixii aad samaysay adiga ta kale waxaa weeyaan yuhuudda walaalaheen dabinkay u hegtay ujeeddadiisoo dhan waxaa weeyaan in la gaaloobo oo diinta ibraahimiyada ay keentay yuhuudda in la qaato oo la gaaloobo oo diimaha la mideeyo hadde madiina islaam mahin baa jirta ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy diinta muxuu aha wuxuu noo sheegay inay muxuu aha diinta islaamkuun keligeed ay tahay waman yabtaqi hayra islaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi alaakhirati min alkhaasiriin marka sidaa darteed ujeeddada oo dhan waxaa weeya ummadda in soomaaliya dhulkeeda la qaato in la gaalaysiiyo hadafkaas weeye hadafka waxaan leenahay walaalaheen somalilan waxaad ka weydeen soomaali weyn walaalihiinna soomaali oo muslimka ah oo qiirada badan oo islaamnimada u qiirada badan oo soomaalinimada jecel oo midnimada jecel waxaad ka weydeen yuhuud oo shirnimo yar ah koox yar ah oo caalamkii oo dhan uu soo tufay waxba ka heli maysaan waxaan leenahay walaalayaal dib u soo laabta islaamnimadiinnii walaalihiinnii u soo laabta ayaan leenahay allahu akbar allahu akbar allahu akbar waxaan ku soo khatimayaa dadka soomaaliyeed waxaan leehay sidaa qiirada aan u muujinayno walaalayaal adduunka maanta wuxuu joogaa adduun quwo xoog wax lagu muquuninaya hadal keliya wax tari maayo maalintii la wac dadkeenna waxaa la rabaa
maalintii dadkeena la waca oo in dagaal la galo la doono waa inaan diyaar wada hadanna diyaar ma nahay diyaar ma nahay diyaar ma nahay allahu akbar allahu akbar yuhuud iyo wixii dabada ka wadaba allaha jabiyo ummadda soomaaliya allaha kor yeelo muslimiintana kor allaha ka yeelo ummadda soomaaliya allaha xoreeyo ummadda reer falastiin allaha xoreeyo